السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada casharadii electric circuit-ka ahay maanta waxaan xalinaynaa casharadii hore aan uga soo hadalnay oo delta y iyo y to delta conversion-ka ahay example asagoo ah ayaa xalinaynaa hal example aan ka bixinaynaa kadibna hore uga soconaynaa marka aad ula socda casharada aad ula socda waad aragtaa hadda circuit-kan deltana way ku jirtaa y-na way ku jirtaa oo delta waxaa ah intaan waa delta sidoo kale delta waxaa ah intaana waa delta kale waa la fahan soo maaha macnaha 5 15 iyo 20 waa delta 5 12.5 iyo 10 waa delta waayaa sidoo kale ku jirto oo ah waayaa ayadana ku jirto oo intaana ayadana oo intaana si ugu jirto fiiri macnaha 5 20 iyo 10 intaasna ayadana waa y marka y-na way ku jirtaa deltana way ku jirtaa adigay marka ku qusaysaa midda aad bedelaysid ayaday adiga ku qusaysaa haddii aad delta bedelaysid delta bedel deltada middaa rabta labadooda bedel haddii aad y bedelaysidna y-da middaa rabta bedel annagu marka hadda middaa rabnaan bedelaynaa tusaale ahaan waxaan bedelaynaa sidoo kale y kalena way ku jirtaa fiiri y kalena way ku jirtaa oo ah intaan ayadana waa y oo dhinacan ujeeda y xagga ujeeda waaye tawna waxay ahayd y xagga ujeeda sidoo kale deltana way ku jirtaa laba deltana way ku jiraan marka waxaan samaynaynaa annagu hadda waxaan bedelaynaa delta ayaan bedelaynaa deltadaanaan bedelaynaa fiiri ila socda deltadaanaan bedelaynaa deltadaasaan waxaan ka dhigaynaa y marka y maxaa la raadinaya y waxaan soo saarnay 3 qaacido oo kala ahaa r1 r2 r3 marka r1 waxaa lagu helayay rb rc oo loo qaybshay ra rb rc adigu middaa rabto bedelo middaa rabto anigu laakiin tanaan bedelinaya deltadaasaan bedelaya kow marka waxaan dhahayaa r1 macnaha rb maxaa haystaa tan waxaa waaye rb tan waxaa waaye rc tanna waxaa waaye ra marka rb maxaa haystaa 15 oo lagu dhiftay rcna 5 oo loo qaybshay 20 plus 15 plus 5 marka calculator aan ku shaqaynaynaa waxaan dhahaynaa 5 oo lagu dhiftay 15 maxaa haystaa 75 oo loo qaybshay intaana isku dardar 20 ku dar 40 u qayb waxaa noo soo baxday r1 1.875 ohm waa noo soo baxday r2 maxaa noo soo baxay iyadana r2 waxay noo noqonaysaa ra rc oo loo qaybshay ra rb rc qaacidooyinkan haddada aqoonsi loo soo saaro casharada hore ku laabo ra rc ra maxaa haystaa 20 oo lagu dhiftay rcna 5 oo loo qaybshay ra oo 20 ah 20 plus 15 plus 5
mar haddaa isku dhifatid waxaa ka soo baxaysa 100 oo loo qaybshay 40 waxaa nooga soo baxaysa 2.5 ohm. R3 ayadana waxaad ku helaysaa RA RB oo loo qaybshay RA plus RB plus RC. kadib RA waxaad haysataa 20 oo lagu dhiftay RB na waxaad haysataa 15 oo loo qaybshay 40. waxaa ka soo baxaysa 7.5. saddexdooda markaad saan usoo saaratid kadibaa sawirkii ku laabanaysaa. sawirku saanuu ahaay wuxuu noqonayaa labadaas resistor waxaa waaye 2.5 iyo 10 sideedaan usoo qaadanaa. daadhigana sideedaan usoo qaadanayaa. qaybtan dhexo oo aan bedelay aan y ka dhigayaa. halkan waxaa waaye R1 oo la mid ahayd 1.875. halkana waxaa waaye R2 oo la mid ahayd 2.5. halkana waa RC oo la mid ahayd 7.5. saasaa u bedesho. saa markaa u bedesho fiiri siday ku noqdeen. intana sideedii usoo qaado kaarantigii halkaa maraya. halkan waa 120 volti. saa markaa u bedesho 12.5 iyo 1.875 waa isku darsamayaan. waa serious waa ujeedaa soo maa serious ay noqonayaan. waxaa dhahaysaa marka 12.5 plus 1.875 oo serious waa isku daray waxay parallel leeyihiin 10 plus 2.5 oo ayagana serious oo la isku daray. sax intaasaa dhahaysaa. kadib intaana kasoo shaqaynaysaa. labadan markay parallel ay tahay macnaha labadan oo isku daray labadan oo isku daray parallelna waa ka dhigay. kadibaa waxaa dhahaysaa labadan isku dar. labadan markaa isku dartid waxaa kaga soo baxaya 14.375 oo lagu dhiftay adhaysa labadana isku dar 12.5 oo loo qaybshay 14.375 oo lagu daray 12.5. waxaa kaaga soo baxaysa 6.68 ohm waxaa kaga soo baxday. intaas markay kaaga soo baxday tanay serious la tahay waa ku daraysaa plus adhaysaa 7.5 kadib waxaa kaaga soo baxaya 14.18 intana kaga soo baxday. inta markay kaga soo baxday saanaas sawirku saanu noqonaya. marka hadda waxaan xaliyey intaan gudahaan xaliyey. inta gudahaan xaliyey sawirku wuxuu noqonayaa
kadib meeshan waxaa ka soo baxaya 14.186 halkaana waxaa waaye 30 halkaana waxaa yaala 120 volti halkaana waxaa yaala current-ya maraysa current-ya laga rabaa kadib waxaa dhahaysaa labadan waa parallel 14.186 waxay parallel la tahay 30 kadib waxaa dhahaysaa 14.186 oo lagu dhiftay 30 oo loo qeybshay 14.186 oo lagu daray 30 kadib waxaa dhahaysaa calculator aad gelinaysaa waxaa kaga soo baxay ansarka 9.362 ohm total resistance hadda meeshan maxaa waaye total resistance total resistance oo circuitka lagu siiyey ansarkiisii waa kana macnaha su-aasha lagu weydiiyey fiiri su-aasha lagu weydiiyey waxaa lagu dhahay obtain the equivalent resistance RAB iyo RE waa isku mid RAB macnaha halkan ilaa halkan resistorka maraya soo saara lagu dhahay macnaha total resistorkan laga rabaa iyo equivalent resistor waa isku mid for this circuit aa lagu dhahay and use waxaana u isticmaashaa lagu dhahay to find currentigaas inaad heshidna u isticmaal lagu dhahay asaga marka intaa soo saarno current maxaa lagu helaa aan dhahayna current waxaa lagu helaa voltage total voltagena waa haysataa I waxaa lagu helaa voltage oo loo qeybshay R equivalent kadib R equivalent meeqaa haysataa voltage meeqaa haysataa 120 loo qeybshay R equivalentina 9.632 kadib isku qaybi 120 loo qeybshay 9.632 waxaa kaga soo baxay 2.46 ampere marka saasaa kusoo heshay hadii su-aasha lagu diray examplekaas saasaa uga shaqeynay marka muhiimaddu waxay ahayd macnaha inaan ina fahamsiiyo wixii aan intaas wadnay oo aan sida loo xaliyo hadda tusaale ahaan oo kale waxaa arkaysaa in aysan parallel iyo series toona ahayn aarta oo ah macnaha aartan 12.5 ah iyo 15.5 wax ka dhexeeya oo xiriir ah ma jiraan midda kale 20 iyo 15.5 wax ayagana ka dhexeeya ma jiraan sidaa darteed markaan bedelnay bay xiriir ka dhexaysmay xiriirkaas markii uu ka dhexaysmay kadib shaqadeen u fududaatay intaas waaye muhiimaddu aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada fiidiyogan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu